yaryarka markay seexanayaan baa ana la iseexiyaa sida ilmo yar galaaskii caanaha baa la ii keenay anoo caanihii hayo weli aan cabino waxoogaa yara fikiraya waxaan idhi wax yar waan isyara boojeeyay waxaan idhi wax yar kadib baan cabi doonaa intan hay ii yara yaalo wax yar musqushaan galaya waxbaan isku boojeeyay wuu baxay wuxuu dhahay waa soo noqonaya galaaska caanaha markuu ii dhiibo odagaygu wuu ii dhiibayaa wuu ag taagnaanaya intaan cabay markaan cabo galaaska iga sii qaada marmarna haaf baan cabaa halkan aan dhigtaa haafka kale waxaan dhahaa wax yar kadib baan cabi haaf markaan cabo ayuu iga tagaa caanihii waan dhigtay wax xamaam u baahan baan iska dhigay waan yaraha warwareegay wuu baxay marka isagu tarooga isbitaalka la igaga soo sheegay waxaas dhan ma oranin markuu baxay intuu maqnaa baan waxaan galay musqushii wax galayaan iska dhigay ila musqul baa u baahan waa dhex istaagay waan soo noqday caanihii baan qaaday waxaan ku shubay musqusha meesha waji dhaqan ku shubay galaaskiina ma biyo raacinin sida qof cabay oo kale tartiib waxaan u soo saaray koobadiinka ku dhagan sariirta cabaar kadib buu ii soo laabtay anigina waxaan iska dhigay qof hurda caanihii waan cabay waxaas dhan ma oran caanihii sida wax la cabay oo kale galaaskii meesha saaray anigina wax hurdaan iska dhigay agtaydu soo istaagay markaas uu ii yeeray wuxuu yiri shahid يعني قبل ما قاعد وحنا هذا شهد بوري إلى 3 jeer wax la hadla markuu waayay buusaas lugteeda u taabtay khalaas wuu iska sii baxay wuxuu yaqaynsaday inaan seexday ana ma seexanin waxaan rabaa caanahan markaan cabeen seexdo waxa la sameeyay inaan ogaado tartiib u baxay cabaar baa la joogay cabaar baan soo jeeday wuu ii yimiday qof seexanay uu iska dhigay agtaydu cabaar soo yar seexday haddana wuu kacay intaas oo dhan anigu aan isnabayaa wuu kacay markuu kacay wax yar qolka ka sii maqnaabaan tartiib uga soo daba kacay ana waxaan rabaa inaan ogaado bal meesha uu u socdo tartiib uu soo socday wuu baxay guriga wuu ka baxay albaabkii barandada ayuu ka baxay waan soo daba galay ana markaan arkay albaabka barandada inuu ka baxay xaggan wuxuu isla soo laabay guriga dhinacay wuxuu aaday beerta dhinacay beerta markuu aaday aniga qolkayga jiifku wuxuu ku yaalay guriga qaybta hoose qolkayga jiifka daaqadihiisuna waxay ku aadanayeen beerta dhanka beerta inuu aaday markaan arkay waan soo orday qolkayga jiifkan degdeg u soo galay waxaan istaagay daaqada ninkaygi sidoo u sii socday gabadha shaqaalaha qolkeedii buu galay aayar sidoo ugu jiray muddo aan ku qiyaasay 3 saacadood malaha ayuu ku jiray anigii xanaaq naxdin caro saasan u jiray waan gariir waxa la waxaan ku hadlaan garan waay ma ka daba tagtaa ma soo fiirisaa maxaad samaysaa naagta shaqaalaha midisha isaga seed ula dhaqantaa ugu dambeyn waxaan go'aan ku gaadhay inaan halkayga aan iska taagnaado saan u taagnaan marna u fadhiisanay marna u istaagay marna u fadhiisanay malaha deesaq barkii markay tahay boqolkii ka soo baxay markaan arkay isagoo qolkii ka soo baxay tartiib waan istuuray anigu qof hurdaan iska dhigay isagiina aayar buu soo seexday wuxuu iska soo dhigay qof hurda subaxii waagu markuu bariyay odagaygu wuu soo kacay wuu shaqo tagay حتى صبحي ما كعين أنا شنقديسي وحو سميني ودن لا سعودان iska dhigayo qof hurda maalinkii intuu maqnaayo dhan markii waan fikiray waxaan ka fikiray maxaad samaysaa odaygaygu inta gabadhan shaqaalaha ka horeysay gabadho badan oo shaqaalaha ay soo maray waligay wax qaldan isagoo sameynaya ama wax qaldan ku fikiray ama sida hadda uu isu bedelay waligay ma arag waxaan la yaabanahay waxa isbedelka intan la eg maxaa ku riday waxaan ka fikirayaa ilaa qofka waxaan sameynay reernimo dambe idinma dhaxtaalay way idin kala dhamaatay ubadkaygii sidii laga yeeli lahaa caruurtayda labada ii joogtay midkan caloosha ku wado mustaqbal xumada reerkaasi markuu burburo ilmahayga soo wajahaysa reerkan soo dhisaynay intaas oo sano jacaylkan isku guursanay wanaagna dhaxmaray wax alaalo wixii wanaagna dhaxmaray oo dhan baa sida ii soo hormaraya sida filimkii waan fikirayaa marka go'aan qaataan raadinaya waxaan isiri ugu dambeyn bal naagtan shaqaalaha waxa ay samayso qofka caanaha daroogada kuugu soo dara inuu iyada yahay inuu isaga yahay inay isla og yihiin naagta shaqaalaha qolkeeda markuu galo wuxuu ka dhex sameeyo wax walba si aad u ogaato kaamirooyin waa inaad soo gadataa oo guriga ku xidhaa naagta shaqaalaha qolkeeda iyo jikadaba aad ku xidhaa kaamirooyin yar oo waxa jira marka nalka agtiisa oo kala lagu xidho qaarna nalka lagu xidhaba oo qofku inuu shakisan yahay isagu meesha saaid u fiirfiirinayo kor ma ahane aan la dareemaynin musqulaha kale iyo baa xataa lagu xidhaa qof edeb daran oo rabo wax inuu jaajuuso markuu qofku